wasiir ku-xigeenka Batroolka iyo Macdanta Soomaaliya Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal ayaa kulan casho xalay la qaatay jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Columbus Ohio. Kulankan ay ka soo qayb galeen qaybaha bulshada waxa ka hadlay aqoon-yahano culimo iyo waxgarad kuwaas oo wasiir ku-xigeenka iyo wasaaradiisa ku amaanay hawsha ay bulshada u hayaan iyagoo dhanka kalena u dardaarmay hufnaan iyo daacadnimo ku saleysan kheyraadka dalka iyo in laga difaaco inuu dayac la darso. wasiirka oo dalka Mareykanka u yimid inuu ka qayb galo shirka qurba joogta Soomaaliyeed oo looga hadlayay kobcinta iyo sare u qaadida dhaqaalaha Soomaaliya ayaa shirka kadib u soo socdaalay gobolka Ohio isagoo kulan la qaadanaya qaybaha bulshada ee gobolkan. kulankii cashada ah oo ay ka hadleen dad aad u badan waxaa kamid ahaa dadkii ka hadlay aqoon-yahano wax ka dhiga jaamacadaha gobolkan, madaxda jaaliyada, culimada, ardayda iyo waliba siyaasiyiin kale oo u ordaya siyaasadda gobolkan. muddo 5 sano iyo baraba waxaan joogay company leh magaciisa Oil Mobil Corporation oo hadda Mobil Exxon baa la dhahaa oo ku yaala Virginia. 92 baa laga hayr-gareeyay, 97 baan ka tagay. Every year waxay soo sameyn jireen markii annual report waa la qadayn jiray. markii shareholderska waxaa la siin jiray booklets yar oo ku saabsan adduunka shidaalka ku jira. Soomaaliya waxay ka mid ahayd meelaha ugu badan oo calaamadaha ay ku taala meelaha aan shidaalka la horumarin ay ku buuxo ugu shidaalka badan. intaasna waxay noo diiday waxaan inaynu nabad la'aan bay noo diiday. nabad nin waaye haddaad aragtana waa nin caqli waaye weeye. waxaan marka rabnaa inaan isu sheegno Cabdullaahi Xasan Cadaawe qoraa Soomaaliyeed oo la oran jiray 1981 wuxuu qoray buug la yiraahdo annaga iyo adduunka af Soomaali ku qoran raadiyo buuga. daraasadda uu soo bandhigay wuxuu leeyahay kalluunka Soomaaliya awalan wuxuu leeyahay Soomaalidu waxay ku nooshahay dhul badeedu kalluunka uu soo tufayo sida darteed ma gaajoon karto waxay la gaajoonayso waa dibin daabiyo cadowgeedu ku hayo. wuxuu leeyahay marka Soomaaliya kalluunkeeda haday dhoofiso waxay ka helaysaa dakhli lamida midda uu Sacuudi Carabiya ay ka helaan shidaalka ay dhoofiyaan. dalkaas aanu ka soo jeednaa. su'aashu waxa weeye marka maxaa meesha ina dhigay? waxaa ina dhigay midnimo la'aan. waxaa ina dhigay in la kala durjiyo oo la isku kaaya diray. waxaa ina dhigay damac dad cadow ku ah sharafteena iyo masiirkeena Soomaalinimo ay mar walba maleegan. dawladda Soomaaliyeed talaabooyinka qaaday talaabooyin runtii aad loo bogaadiyo weeyaan. waxaan akhriyay journal la yiraahdo Petroleum Economics warbixin oo ka qoray shidaalka Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya arintaas ay u maareysay. wuxuu amaanay laba waxyaabood oo ay dawladda Soomaaliya sameysay. mid waa shuruudaha ay dawladda Soomaaliya u dejisay cidii doonaysa inay ka qayb qaadato soo saaridda shidaalka. in shirkadda imanaysa oo soo raadinaysa waxan ay lacagta ay haysato iyo miisaaniyadda ay haysato ay xad gaarsiisan tahay. in shirkadaas ay hawl bilowdo muddo 6 bilood gudaheed oo ay dalka soo degto. shuruudo taas oo kala ah runtii ay aad u amaaneen ayaa dawladdu sameysay. walaalka Hilaal iyo wasiirkiisa wasaaradda uu shaqeeyo iyo dawladdeennaba waxa mas'uuliyad ka saaran tahay kheyraadka Soomaaliya iska leedahay. waxa iska leh qof kasto inaga mid inteena halkan joogta caawayto qof kasto inaga mid ah waa dhaxalka ubadkeena waa dhaxalkaana waa iska leenahay. haddii aan ku noqono wadankii ay dhacdo ilmaheenu inay ku noqdaan waa wax ay wax ku leeyihiin. Soomaaliya mucaarad bay leedahay baan maqlaa. maba dhalan maba lulatay buu yiri maxay leeftaa waxba ma hayna maxaan ku mucaaradnaa. nothing. we have nothing. we have to rebuild. dalkayga waa inaan dib u dhisnaa. ragga dalkooda u horeeya naftooda u horeeyana waa inaan ku niraana aad baad mahadsantihiin. thank you. waxaan leeyahay inta naftooda ku weyday Allah ya rahma. haddaan la soo saarin shidaalka alternatives jiro waxyaalo loogu gudbi karaa jiro. adduunyadu waa aragteen idinka technology-ga yaqaano waxyaalo kale loo guurayaa. qoraxda dabaysha waxyaalahan looga maarmi karo ayaa la raadinayaa. in koronto baabuurta lagu shubo saliid jaajaro la iska jaaj karayo ama kambaniyada ay ka guuri karaan. adduunku waa mashquulsan aad u mashquulsan. qoliyo OPEC ka socday oo shir nagala qayb galay way noo sheegeen non OPEC group wadamada aan shidaalka wali soo saaray unfortunate khatar bay ku sugayeen. marka meesha ay tahay inaan fahnano waa taas
qiimaha ayaa ka mid ah caqabadaha taagan waa qiimaha loo maaralay waxaa la leeyahay qolyo kale anagu de waxaan akhrinaa waxa soo bax maalin walba moogta waxaa la leeyahay climate change-ga cimiladii waa yuu ka qayb qaadanaya dhibaato inuu ku sameeyo marka sidaas darteed waa in arrintan la focus karayo Deqasona SNTV Columbus Ohio.